arintan ama case-kan wuxuu ku dhacay hooyo xaamilo ah waqtigeeda uurka dhameysatay 9 bilood. dabcan waxaa go-aan lagu gaaray ama laysla arkay inaysan si caadi ah u dhali karin iyadoo loo dooray C-section ama cesarean section in qaliin loo sameeyo. waxay la kulantay markii qaliinkii loo sameynayay in galmo xadgudub ah dhaqaatiirtii howsha gacanta ku haysay mid ka mid ah uu u galmoodo iyadoo fadeexadaas ay noqotay mid aad iyo aad loola yaabo, taasoo noqotay fadeexo ama kaag in laga naxo sida ay wax u dhaceen. waxay noqotay mid adduunyada aad ugu faafta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن إنسان نقد وناكسن وانيجو دكتور محمد ليبان محمد دمانتين وحين الله هي عادي على سنتهين. أنت يقول عصب وحين الله هي فضلا سبسكرايب كقناة كسارة. أنت إذا كهل ما من لينك فيسبوك هذا يجلس سعوتد واحد صورة عكرتها اللينك يقر كسارا سياد أصوب بوقت اليوتيوب كيجا أنا سبسكرايب كوس صارت دمان وحين الله وما سنتهين مرلبات. maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad u muhiim badan. mowduucaasoo ka hadlayo hooyo xadgudub loo geystay ayadoo soo doonatay in laga dhalsiiyo uurkii ay lahayd. dabcan waxay la kulantay gobodfal dhanka galmada ah. keiskaas waxaa ku sameeyey dhaqaatiirtii howsha u waday. dabcan arrinkan wuxuu ka dhacay dalka Brazil, gaar ahaan magaalada Rio de Janeiro. hooyadan uurka leh 9 bilood dhameysatay waxay booqatay isbitaal si loo dhalsiiyo loo kala badbaadiyay ayadii cunugeeda. dabcan dhaqaatiirtii ama howlwadeenadii caafimaadka waxay go'aansadeen baaritaano markay u sameeyeen hooyada inaysan si caadi aysan ku dhali karin, in la isku raacay in loo sameeyo qaliin. dhaqaatiirtii isbitaalkaas ka shaqeynaysay markay keiska ku go-aansadeen in qaliin loo sameeyo. dabcan howlwadeennada caafimaadka ee diyaarinaya dhanka iyo suuxdinta ayaa waxaa dabcan howshii la wareegay. marka ay la wareegeen broseska dabcan wuxuu qaadanaa in qofkan baaritaano badan loo sameeyo, dhiigageeda la kontaroolo. markay broseskaas ay kasoo gudubto haddana la diyaariyo qeybihii suuxdinta, daawooyinka suuxdinta, kabacdi in dhakhtarkii uu howshiisa galo. waxaa xadgudubkan u geystay dhakhtarkii loo xil saaray dhanka iyo suuxdinta. waxaa la arkay ama si qarsoon loogu duubay kaamiro meel yar lagu xiray markii laga shakiyay dhakhtarkaas socodkiisa ama dhaqdhaqaaqiisa aadka u badan iyo inuu yahay mid aada u mashquulsan dhanka iyo suuxdinta marka ay ku jirto. waxaa la arkay asagoo u galmoonayo, gaar ahaan dhanka iyo afka ugu galmoonayo. hooyadii dabcan tabcaanka ahayd foosha haysay oo cunugeeda dabcan rabay in laga dhalsiiyo loo go-aansaday inay qaliin loo sameeyo ayuu wuxuu sameeyey dhakhtarkan gobodfalka u geystay inuu ugu galmoodo dhanka iyo afka. waxaa jira marka ay saalada lagu jiro dabcan ilaa iyo 5 qof ilaa iyo 4 qof ayaa waxaa laga yaabaa in howsha keiskaas qaliinka ay ku jiri karto. waxaa meel gaar taagan dhaqaatiirtii iyo kalkaalayaashii caabinaysay si hooyada markii la qalayo dhakhtarkana howsha lala qabto oo wuxuu qalab u baahan yahay iyo wixii alaab uu baahan yahay in loo soo dhaweeyo mar walbana gacanta loo saaro. halka qofka suuxiyaha ah uu taagan yahay qaybta dambe ee madaxeeda, gaar ahaan dhinaca midig ama gacanta midig ee qofka bukaanka. haddii jeer marka waxaa jiro barrier inuu u dhaxeeyo qofka suuxiyaha ah ee dhinaca madaxa taagan iyo dhaqaatiirta, inuu go u dhaxeeyo. waxaa lagu arkay marka kaamirada markii la dabagalay in dhakhtarkan si direct ah uu dhanka iyo afka ugu galmoonayo hooyadii uurka lahayd. dabcan ayada dareenkeeda muusan joogin ama waxaa laga yaabaa inay suuxsaneed, inaysan ogeynin marxalada socoto. keiskaa markuu hooyada uu ku dhacay wuxuu socday 10 daqiiqo in ku dhow.
dhakhtarka ama suuxiyaha howshaas sameeyey galmadaas gabadfalka ah bukaankaas ku sameeyey waxaa loo gudbiyey isla markii booliska qeybta baaritaanada magaalada Rio de Janeiro. arrinkan adduunka si fudud ayay ku gaartay maadaama adduunku uu yahay meel si fudud ay wax u wada gaari karaan. waxay noqotay in la isugu wada gudbiyo dhanka iyo social media. waxaa la arkay dhakhtarkii oo 10 daqiiqo gabadha kor taagan dhankii afka howshiisa ka wato oo ayadana dabcan aysan war u heenin oo ay meer doorsooneed ama dareenkeeda uusan joogin. waxaa hadda la wareegay keyska booliska. dhakhtarkii howshaas sameeyey ama galmadaas sameeyey shaqada toos loogu raacdeeyey ayadoo lagu xukumay in ku dhow 20 sano inuu xabsi ku xirnaado. waxaana laga qaaday dhammaan shahaadooyinkiisii waxbarashnimo. dabcan waa case aad iyo aad u waxyeeleyn kara qalbigaaga marka aad maqashid. dhakhtarkan suuxiyahan dabcan waxaa ka shakiyey kalkaaliyaashii la shaqeynayay waxayna si gaara camera ugu xireen qeybta uu ka shaqeeyo. waxay dareemeen socodkiisa iyo dareenkiisa inuu aad u badan yahay, inuu hadba meel istaagayo, hadba dhinac u wareegayo, taasoo markii dambe la go-aansaday in kaysaska uu qaabilayo si hoose camera loogu qariyo. waxaa soo baxday in gabadfal dhanka afka ah uu u geysanayo mar walba hooyooyinka qaliimada loo sameeyo. booliska waxay go-aansadeen inay dhakhtarka shaqada ka joojiyaan, in ku dhow 20 sanana xabsi la geliyo, dukumeentiyaashii iyo waxyaabihii uu ku shaqeynayay iyo wixii uu soo barto dhanna dabcan lagala wareego. laakiin arrinkan waxay ka timid dhanka iyo dhakhtarka inuu bukaankiisa uu faraxumeeyo, gabadfal u geysto dhanka galmada. waxay noqotay mid adduunka qeybihiisa dhan ka wada fajicisa. dabcan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay waxaa muhiim ah inay ku xiraan kaamirooyin si loola socdo dhammaan dhaqdhaqaaqyada saalada gudaheeda ka socdo, si loogu taxadaro shaqaalaha shaqeynaya iyo bukaanka inuusan ka dhexdhicin wax xadgudub ah. aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaa dhageysiga iyo la socodka video clipska aan soo geliyay. keyskan waxaan u arkay inaan soo gudbiyo si loo ogaado khataraha ka dhalan karo meelaha ama goobaha caafimaad, gaar ahaan saalada qaliinka ama isbitaalada qaliinka sameeya. in taxadar la sameeyo, in laga warqabo bukaanka iyo dhaqaatiirta ku shaqo leh mar walba hadba xaaladooda siday tahay. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.